aanu adkaysan kari weynay baan haystee haddaad nagu diganaysaan oo raalli ka tihiinna hadla oo qayliyo laascaanood iyo goboladan kibir baa haya dhah haddaynaan nagu diganayna nadaaya dhibtan haysato uma adkaysan karno waataanu ka qaylinayno waata dadka iyaga iyo carruura iyagu dhagaxa ka tuuraya hana la daayo annagaa jeclayn inaanu nabad ku noolaano annagaa jeclayn inaan magaaladayada qax ka dhicin annagaa jeclayn inay magaalayadu nabad noo ahaato laakiin waa la waayey marka shacabkiina iminka waxay taagan yihiin maanta dhimashada hore oo ay in badan inaga dhimanayso waxaanu ka xignaa inaanu siliciyo ku noolaano oo maalinba nin naga mida la dilo wax lagu dilayana aan la garan maxaana la ku sameeyay aad u malaynaysa waana loo yeedhay suuliya saxiix baana la ka qaaday yaa kugu yidhi hadal markii dambe ninkii obiga iga qorayay waxaan ku idhi hadalka xaq baan u leeyahay markaan sugayay inaan nimankaa madaxda aan la hadlo oo shacabka oo isku duuban kala hadla xaajadan waatay diideen inay nala hadlaan markay diideen xaq baan u leeyahay inaan hadlo annagoo isku duuban baanu damacnay inaanu la hadlo guddigii la qabtay baanu ahayn iyagaa diiday hadalkayga dadka iyagii nala deganaayoo soomaalida ahaana way noo dabamareen oo la soo saaray in shacabkii koonfureed la raro markaanu taa ogaanay waa annagii tv-ga ka hadal waana loo yeedhay suuliya saxiix baana la ka qaaday yaa kugu yidhi hadal waxaan uga socdaa shacabkan marka maanta dhallinyarada iyo carruurahaasa isku khasbay oo kiciyey oo ka dhigay inaysan u noolaan karin sidii ay horey u joogeen iyo dhibaatadii hore lagu hayay inayan ku noolaan karin waxay u muuqatay dumarkii carruuraha iyo dhallinyaro waxbaratay oo soo kacay oo iska shaqo waayahoo suuqa iska tuban markaasaa waxaa la sameeyey arrimo aad u cajab badano dhibaatada laynagu hayay waxaa la yidhi ma ooyi kartaan oo ha barooranina ilaa had iyo ka hor mudaharaadku waa un baroor qofka haddii baroorta loo sii daayo oo faraha laga qaado wuu iska nafisaa marka dambe oo culimadu xitaa way ka hadlaan oo waxay yidhahdaan iyo dadka aqoon-yahankii iyo xitaa dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan indhaha ilmadan ka imanaysa waxay nafis u tahay qalbiga qofku hadduu iska ooyo oo baroorto oo qayliyo aakhirka waxa weeye wuu iska yar qaboobaya markii baroortii loo diidayna waxay u diyaar garoobeen inay wada dhintaan kulligood marka baroortii markii loo diiday maxaa kaloo lagu sameeyey in tifiyadii laga xidhayo war isgaadhsiinta waxaa la gaadhsiiyey oo lagu khasbay inay shirkaduhu xidhaan waxaa la gaadhsiiyey annaga guddigii dambe ee garaadku haddana qabtay waxaana la ku sameeyey in la yidhaahdo war isgaadhsiintii waa tiiba xidhnayd hudheelkaanu ku shiraynay baana laku soo weeraa oo askar hudheelkiina waxaa la yidhi haddaad mar dambe lagugu shiro dee saasaanu u fahmnay laakiin furihii baana la ka xaday markii dambena meesha askar baanu ugu tag shirkii u horreeyey meeshaanu ku qabsay markaa xitaa guddida lamaba dhisine dib baa la rabay in laga magacaabo haddana hudheel kaleaanu tagnay waana laku soo weeraray aniga ilaa dee dhowr nabar baa igu yaalla weerarkiia weliba waan u sheegay booliska waxaan ku idhi nimanka gudaha ku jira ee qolka ku shiraya waa niman ciishaysan qaar baa dadkoodii dhintay qaar bay dhaawacmeen qaar baa ooyaya haddaad ugu gashaan meesha dhiig baa ka dhacaya ogaada waa usii sheegay kama qarin anaa bannaanka ugu soo baxay askarta waxaan ku idhi haddaad ugu gashaan waxaad ogaataan anu waxba idinka qarin maayo mayd baa laga qaaday iyaguna ha dhinteen idina waad dhimanaysa marka waa tii dee dagaalku ka dhacay markii dambe maxay gaadheen kii toorre haystay iyo kii budh haystay iyo qaar looxyadii la baxay qaar baa jajabsaday hudheelka looxyadiisa marka iyaguna qaar baa moobiladoodii la soo baxo waxay is yidhahdeen haddaad wax kala weydo askarta moobilkaa ku dhufo maalintaa maxaa marka dhacday ma hadli karti ma shiri karti guddi ma qabsan karti hudheelladii baa nala ka xidha marka waxaanu ku noolayn nolosha halkaasaa nala gaadhsiiy war ma waxaas dee anigu marka waxaanu isnay war waxaa looma dul qaadan kare waxa weeye waxaa nooga daray tifiyadii baanu u yeedhnay maantaanu 12 qodob soo dhigan tifiyadii baanu u yeedhnay markaasaanu ni warka naga duuba waxaynu yahay warnimo waa nala qabsanayaa kamaradihiina aanu idinku duubno ee haddaba anagu idinkama duubi karno codka laakiin kamaradihiina aanu idinku duubay halkaasaanu gaadhnay ilaa maalintaa hore moobiladayadaan baa lagu gudbiyey moobilo dhalinyar wax ku duubaysa baanu ku gudbiyey laakiin maantii dambe waxay yidhaahdeen markii intii yarayd ee warbixintii hore intii yarayd ee hore ee aan xoogaa ku butaacnay baan sheegaya markii nala soo weeraray intaa moobiladaa lagu duubay laakiin intan dambe oo 12 qodob oo guddidu ka baaraan degtay waxay ku duubeen kamarad aanu anagu wadanay baa lagu duubay garaajaaca gurigiisa aanu baadhbaadhayo markii dambe adu waxaanu raadinno waxba kamarad baanu helay marka kamaradii baan weliba niman dul dhigno inoo ilaaliya marka haddaba yaan laynu ku soo weerarin
halkaas la maray xaaladdu maras marka arrinta waxaan uga socdaa shacabku waxa loo baahan yahay dad shacabkan ka naxaya waxaan leenahay qofkii shacabka madax u ahoo ka nax haddaad wax u tarayso maanta iyaga halkaasaa la gaadhsiiyey ma ka naxaysa qofkii caqli lahow ka nax qofkii war wax ugu tarayoo ka nax qofkii soomaalinimo wax ugu tarayoo ka nax baa shacabka halkaasaa la gaadhsiiyey waxaan baaq u dirayaa walaalaha ee gobollada waqooyiga dega isku mid baynu walaalayaal wallaahi soo dhaar ilaahay ma marin markii dowladda Soomaaliya weerarka idinku soo qaatay ee SNM-na ay xagga ka dagaalamayso laba qolo oo dan leh ay labaduba ahayd dowladda Soomaaliya de waxay ilaashanaysay dictatorinimadeeda SNM-na arrin ay iyadu wadatay marka laascaanood waa lagu shiray 45 odayaal ku shiray halka dareeyada oo dadkan oo dhan ka kooban waxay soo saareen in Salebaan Mursal Ilaahay ha naxariista gudoominay waxay soo saareen inaanan dawladda iyo shacabka iyo SNM isugu tagin dawladdu hay iska celiso cidii la dagaalamaysa saasay soo saareen maalintii markaan warkaa maqlay waxaan anigoo aniga nin kala meel wada joognay quro nin magaalada waan ka maqnaayo nin reer miyiga baan wareysano dhig maxaa ka soo baxay wuxuu waxa la isku raacay saddexdii meelood ee reerahan wuxuu qaybsan jireen ba laga soo saaray go'aankaas oo inaan dawladda iyo SNM la isugu tagin shacabadu ay isbadbaadiyaan la isdaayo markaas aan waxaan idhaahno aynu alla barin waa alla bariyay annaga culimada laascaanood joogta waxaana loo yaqaanay SNM waana nala ku dacweey waxaana la ku yiri waxay u hadlaan niman markaa dawladda u shaqeynaya wax nagu dacweeyeen inay SNM la shaqeynayaan inay ka hadlaan dilka halka ka dhacay waqooyi taasana la ku dacweey waxaan leenahay shacabka iyagoo walaalaynu nahay isku nool baynu nahay isku mid baynu nahay waxaan u adkaysan kari weynay baan haystee haddaad nagu diganaysaan oo raalli ka tihiinna hadla oo qayliyo laascaanood iyo gobolladan kibir baa hayadha haddaynaan nagu diganayna nadaaya dhibtan haysato uma adkaysan karno waa taanu ka qaylinayno waa ta dadka iyaga iyo carruura iyagu dhagaxa ka tuuraya hana la daayo wallahi wixii idin haystay iyo waxa la idinku dilayay shacabiyada cidda isku diraysayna maysan ahayn shacabka dhexdiisa laba qolo oo qolana ay doonayso inay dawladda ka go'do qolana ay kula dagaalamaysaa shacabiyadan isku direeyay asalku ma ahayn colaad shacabka ka soo fiday ma ahayn taasina waxaan leenahay maantana shacabka ee gobolladaasi waa walaalahay waanu iswada dhalay qaraabaanu wada nahay waanu isjecelnahay waanu isu naxariisanaa isku nool baanu nahay waxa weeye ma kala maarano laakiin dhibta annaga noo daaya dhibtayadu annagayna haysataa ee faraha nooga qaado annagayna haysataa sida annagu naftayadiina intaanu cid kula shuraakaynayna hore oo aanu daynaynay hadda wayna soo kartay oo adkaysan kari weyn haddaad noo garaabaysaan iyo haddii kala